halkani waa shabakada Kobciya Media Production iyo Alistad Engineer Xasan Maxamuud Faraqle oo uga baratay soo saarinta barnaamijyada iyo casharro kala duwan oo xiiso geliya ku xirnaa kuna soo dhaw shabakada Kobciya Media Production. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوالة شبكة كوبعية ميديا برودكشن iyo Alistad Engineer Xasan Maxamuud Faraqle. maanta waxaan rabnaa insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo inaynu eegno waxa loo yaqaano caqabadinta badan naga soo wajahda xagga isticmaalka mobilka maadaama qof walba uu isticmaalo smartphone inta badan waxyaabaha nafta inoo keeno ina dhib waxa kamid ah AdSense waxa loo yaqaano oo ah xaysiinada inta badan internetku inoo soo diray. haddaba maanta waxaan rabnaa barano qaabkii xaysiintaas la isaga xiraa anoo soo koobayo hawsha gudaha u galaya si aad isaga xidhid xaysiiska inta badan mobilka ku soo bandhigayo. marka koowaad waxa lagaga baahan yahay inaad tagtid meesha loo yaqaano setting ba ku dhufanaysaa kadibna waxa ku sii dhufanaysaa Google setting ayaad ku dhufanaysaa bishardi waxa ah in uu ku furan yahay waxa loo yaqaano internetka inuu ku shaqeynayo. tan waxa ku sii dhufanaysaa meesha ay ku qoran tahay ads meesha ku qoran tahay ama AdSense halkaas ayaa ku dhufanaysaa kadibna wuxuu ku sii gudbinayaa page-kan ayuu ku sii gudbinayaa ama ka wada daaqadan iyo window-gan ku sii gudbinayaa. waxa ku sii dhufanaysaa marka ads by Google. waxaan maadaama Google iyo internet soo marayo iyaga ayaa rabaa in laga soo qaato permission-ka ogolaanshaha xiritaanka. marka ku dhufanaysaa ads by Google ba ku dhufanaysaa. marka ku dhufatid wuxuu kugu furayaa ama kula aadayaa Google serverkii ayuu kula aadayaa internetku waa inuu ku furayaa. marka kula halkan oo kale ka anfacaysa uu soo kicinayaa Google-kii ayuu soo kicinayaa website-kii qaybta support-ka oo caawinta qofka laga caawiyo markii wax ku dhacaan. halkan uu keenay ama daaqad cusub inoo furay soo markaa isaga xirno xaysiinada ads Google ku inta badan noo soo dirayo. waxaan raadinaa meel ku qoran tahay AdSense halkan ay ku qoran tahay learn more about personalization ay ku qoran tahay ayaad ku arkaysaa AdSense. waad ujeedaa AdSense ma ku dhufanaysaa. AdSense markaa ku dhufatid then last page-ki ayuu ku soo display gareynaya page-kii ugu dambeeyay oo markaa aynu shaqadiisi guud uga qaban lahayn ama aynu ka xiri lahayn xaysiiska inta badan mobilka noo soo diro. dadka inta badan mobilka xaysiiska loogu soo diray wuu dhibay mobilka culays buu ka dhigaya culays badan buu ku saaraya sadartii waxa imaanaysa mobilka inuu slow noqdo oo aad iyo aad shaqadii badan oo aad u dirsan lahayd uusan qaban. markaas waxa markaa ku fududaanay markaa iska xidid shaqadii mobilkaaga ayaa ku fududaanay. halkan uu keenay advanced personalization buu keenay. marka si aan u xirno waxaan u baahanahay inaynu aadno meesha loo yaqaano personalization is on bali xaysiiska Google ku soo dirayo shakhsiyan adiga si gaar ah lagu soo dirayo waa on u daari. halkaas baad taabanaysaa. marka taabatid wuxuu ku leeyahay keep on ma ku ogolaada inuu ku sii tarnado turn off ma ka dabiya xaysiis in lagu soo diro. haddii uu yiri aad damisid waxyaabaha dhacaya turn off hadaa samaysid waxyaabaha dhacaya in badan awood ma yeelanaysid in aad xaysiin khaas ah waxyaabaha aad la socotid. marka waxa uma baahni keep on dhihma waxaan dhahayaa turn off baan iga dimi baan dhahayaa. wuxuu marka save gareynaya wax loo yaqaano wixii aad samaysay. okay then ujeedaa off bay ku noqotay sidaas. marka waxaa kuugu dhamaaday waxa loo yaqaano AdSense xaysiiskii Google-ku mobilka ugu soo diray waa inta ka dhamaad. aad baa mahadsantahay inaad fahanteen baan u maleynayaa insha Allah. la socod wanaagsan barnaamijyada dambe soo socda. waa Engineer Xuseen Engineer Xasan Maxamuud Yusuf Xasan Albanna oo idin leh nabadi.